kusoo dhawaada barnaamijkan oo barnaamij gaar ah oo uu marti noogu yahay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Ciro oo isla markaasna gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadaniga ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan kusoo dhaw telefishinka Universal mudane Hereri iyo TV-ga Universal ba waa mahadsantiin muddo dhowr maalmood ay imika ku sugnaydeen magaalada London adiga iyo wafteed hogaaminayso oo xisbigiina ama ururkiina wadani ka tirsan ujeedada booqashadiina maxay ahayd bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halka jeclay marka hore inaan ka salaamo dhammaan dadka dhageysanaya TV-ga waxaan halkan u nimi aniga iyo wafdi ballaaran oo ka socda urur siyaasadeedka wadani ee Soomaaliland marka hore inaanu si guud uga warrano jaaliyadda Soomaaliland ee degan UK aanu dalka uga warrano iyo guud ahaan aanu uga warrano u diyaar garowga doorashada golayaasha deegaanka ee ururku uu doonayo inuu diyaar garoobo doorashooyinka deegaamada ama dawladaha hoose bisha dambe November bay dhacayaan rajadiinu xisbi ahaan siday tahay markaanu eegno marxaladii laga soo gudbay haday tahay xafiisyadii la furayay haday tahay dadkii la tirinayay iyo haday tahay musharaxiintii la soo bandhigayba markaanu eegnay dareenka shacbiga reer Soomaaliland markaanu sirfiye badan sameynay waxaanu ku kalsoonahay in ururku uu ka mid noqon doono ururada soo baxay hadii la haysto kasako markaa gudoomiye warbixintan aad sheegtayna wadankii iyo doorashooyinka soo socda ka siineyseen dadka taageerayaashiina ama reer Soomaaliland ku dhaqan wadankan Ingiriiska kaalin kale iyagu ay ka qaadan karaan oo ay wax idin ku beeran karaan ma jirtaa kaalmo badan bay ka qaadan karaan Cabdisalaam waxa la socotaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliland ba in dad badan oo kamid ah mujtamacaasi ay hadda qurba ku nool yihiin saameyn badan bay ku leeyihiin dadka halkan ku nool dadka gudaha jooga ama ha noqdaan dhaqaale ahaan inay taageeraan ama xiriirkooda ama gacanta ay ku leeyihiin marka dadka gudaha jooga dadkan influence badan bay ku leeyihiin marka dhaqaale ahaanna kulliba jaaliyadaha Soomaaliland ee dibadda waa kaalin laga filayo inay ka qayb qaataan dhammaan ururada siyaasadeed ee Soomaaliland marka haddii su'aasheeda si kale u dhigo ma waxa uu soo doonatay lacagtii ku gali leedeen doorashada waa laga yaabaa taageeradooda inaan u baahanahay laakiin dadka guduhu laftigoodu qayb muhiim ah ka qaataan arintaas waxyaabaha ugu waaweyn ee isleedihiin safarkan warbixintaas siinaysan ee wadankii guud ahaan ka siinaysan way kaga duwan tahay tii markii idinku dambeysay halkan aad timaadeen maxay tahay marba maxaad baa la taagnaa marka waxa laga fikirayo urur cusub inay sameysmaan Soomaaliland hadda marxalado badan baa la soo maray ururadii way badnaayeen markii hore way kala hadheen hadda waxa ugu dambaysa in doorashadii la galo marka maraaxilka la soo maray iyo dalka la taagan yahay iyo si la doonayo in wax loo wada qabto ayaa imika waxa laga hadlayaa hadii la hakado inkastoo mudane gudoomiye sidaan qiyaasi karo ururkaagu uu soo baxay oo adigoo aad ku qanacsan tahay go'aankii ay gaareen gudidii kala reebista ururadii hadhay gabi ahaantood kuma qanacsana go'aanka soo baxay adigu sidaad u aragtaa cabashooyinkooda ururada hadhay xaq bay u leeyihiin wixii cabashaa sharciguna uu fasaxaya inay cawdaan inay dacwoodaan inay maxkamadda tagaan marka in la qanciyo iyo inay maxkamadda tagaan ba xaq bay u leeyihiin dawna u leeyihiin waxyaabaha kale ururada qaarkood ay si weyn baryahan dambe uga hadlayeen waxa kamid ah labada jage aad imika isku hayso gudoomiyihii baarlamaanka iyo gudoomiyihii urur siyaasadeedka wadani doodoodu macquul ma tahay waxa wali horta waxa ku dhisan yihiin waa ama waana sharci ku dhisnaadaan marka waxay la tahay dooda hadda socota dool ku salaysan sharciga Soomaaliland ama dastuurkeeda maaha waxa weeyaan dood fikir ashkhaaseed u bad ku salaysan tahay laakiin kuma salaysana shuruucda dhaqangalka ee Soomaaliland laakiin doodaasi intii ay socotay oo baryahan dambe waliba ay aad xoog u lahayd wax badan adigu kuma darsanin inta badan wad ka aamusnayd sababtu maxay ahayd waqtiga ku haboon iyo marxaladda ku haboon waa ka jawaabi karaa arrimaha dhowr jeerna waa ka jawaabay
marka koowaad waxa weeye dastuurku ma diidayo labada xilaan isku hayo marka labaad shuruucda kale ama doorashooyin ha noqdaan ee dhaqangalka Soomaaliland ma diidayaan markaas sidaa daraadeed de sabab aan arinta u buunbuuniyo ma jirto laakiin cid badan oo ka hadashay illa waa sharci darro jirtaa illa waa sharci waa jirtaa laakiin mar walba waa in xaqiiqadu noqoto oo maxaa sharciye la jabiyay markaan waxaan rumaysnahay inaan dastuurkana jabin shuruucda wadankana jabin labada jagana waxaan ku imid doorasho ta baarlamaankana doorasho ku imi mudanayaasha golaha wakiilada ay doortay inaan gudoomiye noqdo ta kalena taageerayaasha xisbiga ayaa ay doortay inaan gudoomiye noqdo marka mid xoog kuma qabsan waa tahay laakiin adiga mas'uulahan labada jago sidee bay kuugu suurto gashay inaad hawlahoodii isku wadid maadaama labaduba hawl mug iyo miisaan la ka doonayaan labaduba waa xil waxaan isleeyahay labadooda ka soo bixi karaysa mana yihiin mas'uulkii ugu horeeyay laba xil isku haya Soomaaliland laakiin ma ku tala jirtaa marka doorashooyinka dawladaha hoose laga gudbo tusaale ahaan in haddii ururkaagu uu ka mid noqdo axsaabta soo baxaysa in marka jagadan kale aad ka tanaasusho horta labada waqti bay leeyihiin Cabdisalaam oo gudoomiyaha golaha wakiiladu kursi la iskaga fadhiyo maaha uu waqtiyeysan yahay marka waqtigiisina wax yar baaba ka haray hadda marka qolooyinka aad xaamiga waxaan la inta yar iska suga ka kalena waqti buu leeyahay labadaba waqtigooda uu ka digi doonaa markay dhamaato hadii ay ka waqtiyadan dambe markaynu eegno axsaabta mucaaradka qaarkood baa idinku dura in idinka iyo dawladdu aad isugu dhawaateen baarlamaan ahaan iyo dawladii doodoodaas say kugu muuqataa horta qofka muwaadinka xaq uu leeyahay inuu wax criticize gareeyo critical noqdo qofka de mucaaradkiina mar walba inuu xukuumadda wax ka sheego waa iska caadi dunida oo dhan laakiin anagu waxaanu qabnaa dawladdu horena kuma naandaweyn tanna kuma naandaweyn de wada shaqeyn ba laakiin naga dhaxaysa madaxweyne hore wada shaqeyn ba naga dhaxaysay marar muran soo dhex galay way jireen marka mar walba waxa dastuurka iyo shuruucda khasbaysa in la wada shaqeeyo marka waxa isleeyahay waa lagu yara talaxtigay doodahaas laakiin shaqada naga dhaxaysan ba waajibinaysa inaan wada shaqeyno waatay axsaabta Soomaaliland dabcan ururkii u cidbaad ka tirsanaan jirtay doorashooyinkii dawladaha hoose 2002 bay ku soo baxeen markay noqoto dhinaca ururada imika jira iyo saddexdii xisbiye jiray maxaa ugu weyn ee laga bartay bay kula tahay muddada 10 sanadood kulliba waxa leeyahay dhinaca marka la eego de siyaasadda koritaankaas uma kamid ah dadku korayeen dhinaca wacyigelinta iyo siyaasadda berigii hore doorashada la gelayay 2002 dadka waa lagu khasbay inay musharaxiin noqdaan maanta dadku iyaga doonanayay oo raba inay musharaxiin noqdaan inay iska bixiyaan cashuurtii inay soo doontaan xilkii marka wacyiga de siyaasiga ah dadku u kordhay marka la eego waxa kale oo ku soo korodhay in dhalinyaradii loo fasaxay oo age-koodii 10 sanadood hoos loo dhigay mar waxa isleey 60% dadka la sharaxay maanta waa dhalinyaro iyadoo wax kale oo ku soo kordhay way Soomaaliland waxa isleey marka maadaama urradii la furayna waxa isleey dad badan oo de istijaabiyay oo doonayay ama han siyaasadeed lahaayeen oo fursad la siiyay way soo korodhay marka waxa isleeyahay waxaan rajaynayaa oo de marka ugu dambaysa sida suuq tilmaamayo 3 urur baa la isugu iman doonaa ama 3 xisbi qaran laakiin dadku waxa isleeyahay wixii ay u baahnaayeen waa loo ogolaaday oo in qofku uu de urur samaysan karo istijaabin karo hankiisa muujin karo laakiin dad fara badan oo ka faalooda arrimaha Soomaaliland marka laga hadlayo ururada iyo asxaabta waxay inta badan soo qaataan muddada 10 sanadood halkii wax laga baran lahaa ee xisbiyadii jiray la xoojin lahaa ee dadkii wacyigelin xagga ururada la siin lahaa in dhinacii kale loo biyo shubtay oo imika waxa loolanka lagu gelayaa ay tahay qabyaalad taasi mid jirta ma tahay horta xaqiiqada jirtana lagama tegi karo oo de Soomaaliland ku noolnahay dadku maadaama constituency wax la ilaahay dunida marka laga dooranayo xaafad baa laga soo doortaa qofka
لكن ولينا بالصيل كامل قاعدين قفكو markuu de musharax doonayo constituency buu baahan yahay marka taageeraysi walaya qaraabadiisa inay badato ama qaraabadiisa wada noqoto marka dhinac marka laga eegana reerkii way soo gelaysaa dhinac marka laga eegana de waxa laga yaabaa dadaan reerkiisa ba ahayn inay codsin karaan marka waxa isleeyahay marxalada soo marayo weeye dadku may gaarin wali inay ku kala doortaan wali de ajendaha siyaasadeed qofkaasi wato marka labadii war isku wadayna dimuqraadiyadii iyo tii deegaanka laftigeeda marka waxaad leedahay waa ururadii ama asxaabtii haddana reeraysan reernimadu kama maqna meesha de xisbinimadiina way jirtaa marka labadii waan isku wadaynaa waana laga gudbi doonaa waan qabaa marxaladda dee mustaqbalka fog hadii la haysto laakiin markaad eegto sidii ay usoo shaqaynayeen golayaasha deegaanku 10kii sanadood ee tagay dad fara badan waxay leeyihiin malaa waxa la qaatayba meeyarkii kalidii talinayay oo isqabqabsi gudahooda iyo isbarbariyaac iyo magaalooyin fara badan ka jiray nidaamkii lagu socday 10 sanadood mid sax ma kuugu muuqda adiga mise wax ka bedel buu baahan yahay horta waxa weeye tijaabay hayno de markii ugu horeysay sameeyay wax dooratay ahayd tijaabada waan soo galay oo bari hore liis wax lagu doortay waxa soo baxayay uu ninka liiska xagga sare kaga jira laakiin maanta waxa soo baxaya ninkii dadku codka uu siiyo marka asli tijaabo labaad baan sameeynaa oo dadkay doonayeen bay soo saari karaan maanta dadkay ku xidhan tahay inay nin wanaagsan soo saaraan inay codka u badiyaan inay ka amaanada la doortaan marka asli fursad labaad baa la siiyay mid tijaabo labaad dadka shacbiga ah reer Soomaaliland dabcan waxaad sheegtay ina rajaynaysan in saddexda xisbi qaran ay soo bixi doona ka mid noqotaan inkastoo muddo dheer ay ka harsan tahay marka hadiiba uu soo baxo wadani ma adiga u noqonayo murashaxa jagada madaxweynenimada xisbi ahaan maadaama marxaladaas aan la gaarin ana waxaan qabnaa in axsaabta qaranka ay rool ka leedahay inay soo saarto musharaxii madaxweynaha waxa ka mid noqon doona un dadka dee u tartamaya xisbi ahaan madaxweynaha marka hankaasna waan leeyahay waan cadeeyay laakiin de shuruucda xisbiga way u ogoshahay qof kasta waa inuu soo sharaxi karo waatay tii baarlamaanka waxaa tiri waqti yar baa ka dhiman goormay noqonaysaa baarlamaanka sanad bay ka dambeynaysaa hadda sida qorshuhu yahay waxa kaloo la isweydiinayaa gudoomiyo aan waliba filaya in doodaan aad wax kala socoto doorashooyinkan isdaba jooga ee Somaliland imika tii dawladaha hoose sanadka dib tii baarlamaanka haddana laba sanadood kadib tii madaxweynaha Somaliland ma qaadi karaysaa kharashaadka inta laga hawsha inta laga doorashooyinka isdaba joogo waa qabaa dad badanna way qabaan fikradda in la mideeyo doorashooyinka laakiin durgufaha ayaa khasbayay mar walba in sidaa ay u dhacdo waxaana qabaa mustaqbalka in laga fikiro in doorashooyinka wixii israaci kara la israaciyo tusaale ahaan koobaad oran leedahay la israaciyado haddii dee suurto gelayso waxaan lahaa iminka guurtida iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha in la israaciyo waxda laga wada hadli karo la isla eegi karo gartay marka saddexda kale in la israaciyo dawladaha hoose gooni ahaato dawladaha hoose 10kii sanadoodba mar waxa loo baahnaanayaa in ururada la furo oo la tartamo marka gaar bay noqon kartaa laakiin shanta ka dambaysa afarta waa la israacin karaa saaniga ila tahay ururada markay noqoto waxa tii 10kii sanadoodba in qaar cusub soo baxaan doodo xoog la jiray oo arinta ku saabsan oo dadka qaar leeyay mala wax la qaatay kuwii hore u jiray in la kobciyo halkii inta laga baabiyo haddana hoosta laga soo bilaabi lahaa 10kii sanadoodba mar dabcan adoo timeka ma qabtid Tooma daanu shacbigu ma kamid ahay waxa shacbigu doortaabaan ayaan qaadanayaa laakiin dadku waxay doorteen in loo furo 10kii sanadoodba mar doondu way jirtay kuwan baa la daayaa ma waxa la ururada la furo dadku in badan ba u halgamaysay in ururada la furo de guddi baa la saaray qaran dadada shacbigu waxay doorteen in la furo ururadii laakiin talaftigeeda waa laga doodo waxa la yiri ma 20kii sana mar la furaa ma 15kii sana mar la furaa ma 10kii sana mar la furaa ma 5kii sana mar la furaa dood waxay u badatay 10kii sana mar la furo si inanka